كواد أيها حسب بلادن لوسمي sanadguuradii 23aad ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka badda Somaliland xaflad ballaaran oo lagu qabtay xarunta saldhigga ciidamada badda ee magaalada Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro ka socday xukuumadda dhexe ee Somaliland iyo waliba mas'uuliyiinta gobolka Saaxil taliyaha ciidanka badda ee Somaliland Maxamed Xuseen Xiirane ayaana halkaasi hadal dheer ka jeediyay isagoo si weyn ugu baaqay ciidamada badda Somaliland in ay inta ka sii dardar geliyaan hawlaha ay qaranka u hayaan وعالك سان وجود بنيا أنا أقول لي أفكار عينك تلين ما عينك بدأ سلاكيش عينك بدأ سلاكيلك عينك حاسس كذا دبل إذا لما أنتم على هاي سنة يسوق أنا لبدي برواو أنت أكذب وحا هذا الكلام ما حاجة عينك عشان نصر أحمد تريها فردنا نفردنا ما أنت وكشيء كي عينك بدناها كان شيء كي واي aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ku noqon maayo waxaan u asteeyay maanta oo nasiib weelan u asteeyo maalintan in lagu xisaabtamo sanadka dambe maxaa la qabtay hadii la iska socdo waa dhibaato sanad walba hadii la ka dhigo marka la shaqeeyo waxay ku fiican tahay in la xisaabtamo oo la sanadkiiba maxaa loo qabsoomay maxaa adduunyadu helay maxaanu qabanay kotrban maxaanu qabanay mataqaana taariikh maxaanu qabanay inta lagu xisaabtamo waa inta sanadka dambe insha Allah baan ka shaqeyn doonaa hadda sheegan ma ergii ugu horeeyay xilkoodii لكن هل كيف كسي قاضية وعيقوم مقالة كنتم يصدبا سركال بعد بدأ الله دري ونحوشين دولنا زجارسينتا طيانتا عيدنكا تابرك عسلقا لما أنتوا أديلا كدقوا وعن شاء الله عصينا وزارة المالية سيقول تحدرتوين عيد ماذا كله شدال كودا إنه بدنا ويكتو وأنا يجي إنه يجاري يرو شدال كيزوي الميل جارين بدو إنه يشوا شدال بدنا لقول عليه سلوا قبته هوش القسوي هدان شدال بدنا لهين وحبس عمايا runtii aad baan ugu amaanaya ciidamada badda waxaan leeyahay oo mar labaad mar saddexaad ku celiya waxaad u dhaarateen oo naftiina u horeysaan qarankan Jamhuuriyadda Somaliland habeen iyo maalin cid lagu seexdaa ee Somaliland ku gamaan ee ciibadeena dheer 850 kilomitir lagu nagaadaa lagu seexdaa waa ciidamada waa idinka wixii lagu nagaadaa abaalkiina ma gudi karo qof bini'aadam waxa gudi karo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciidankan horta marka ugu horeysa waa ciidanka adduunyada tusay in Somaliland iyo Soomaaliya ay kala duwan yihiin markii dawladii hore Soomaaliya la isku oran jiray dhulkeedii oo dhan burcadbadeedu ay weerareen ee markab walba ay afduubeen dunidu waxay aragtay in dhammaan xeebaha badda cas ay yihiin qaar safe oo maraakiibta dunidu ay marayso himiladaas ummadda reer Somaliland ay in badan ku taamayeen waxa qaybtoodii ka soo baxay ciidanka ilaalada xeebaha aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa managers. Thank you for inviting me to celebrate the 23rd anniversary of Somaliland Coast Guard. On behalf of the people, we would like to thank you for the great support receiving from the Coast Guard securing the port of Berbera. DPW's vision is to make Berbera port to be the major port of the Horn of Africa, and the port security is one of the important elements to develop the port of Berbera to be the main hub. We would like to ensure that our close relationship and support to each other will be maintained for the benefit of Somaliland. sanadkan bilowgiisii baan gobolada bari booqday waxaan tagay degmada Mayd runtii base weyn bay ku lahaayeen ciidamadu waxaan aad iyo aad runtii aan maankayga uga bixin marnaba duruuftii ay ku shaqeynayeen ciidamadaasi iyagoo markaa laba dowmood oo sharci darro dalka ku soo galay soo qabtay oo shidaalka meel ka soo amaahday oo runtii aad iyo aad sidii u dadaalayaan iyo wadaniyada ka muuqata aad iyo aad runtii aad u maleynayso aad baan runtii ugu mahadcelin waxay maanta sharaf iyo karaamo iyo milgo
inoo tahay inaynu hor taaganahay ciidankii qaranka qayb ka mida ama ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Somaliland oo waajibaadkiisii qaran ka fushanaya goobihii loogu talagalay iyo inagoo u dabaaldegayna 23 guuradii ka soo wareegtay maalintii la aasaasay munaasabada aad u qaaliya aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa admiraal maxamed xuseen faarax in ilaahay uu maxaan ku ilhaamiyay inuu maanta xasuusta uu dhigo si ay u noqoto wax sanad walba maxaan ku raahday loo qabto ciidanka ilaalada xeebuhu wuxuu ka mid yahay astaamaha ugu qaalisan ee uu qaran leeyahay dawladaha qaarkoodna ciidankoodaba waxa weeyaan waa ciidanka badda weeyaan sida Mareykanka oo kale وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي قاعد بولشة تي في مقالة حبيت بربرا.